golaha jaaliyada Soomaalida dalkani Koonfur Afrika oo ku guuleystay soo siideynta 12 qofood Soomaali oo laba kamid ay dumar ahayeen kuwaas oo muddo 3 bilood ku xirnaa xabsiga weyn ee Landela ay ku yaala duleedka magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. Marwa Nafisa Siyaad Maxamuud oo qaabilsanaha golaha jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika xiriirka arrimaha guud ayaa ugu warantay TV-ga caalamiga Universal TV tirada guud ee maxaabiista ay soo siidayeen. maanta anagoo Somali Community Board waxaan ku guuleysanay inaan soo siidayno dad Landela ku xirnay muddo 3 bilood aan ku guuleysanay maanta inaan soo siidayno dadkaas oo tiradooda yihiin 12 qof oo laba dumar yihiin haddana waxaan oo dhiman 10 qof insha Allah waan soo siidayn doonaa. gudoomiyaha golaha fulinta jaaliyada Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika Abukaata Ismaaciil Cabdalla Soomane ayaa goobta kula hadlay qaar kamid ah eheladii dhalinyaradii xabsiga laga soo siidayay isagoona dhinaca kale kula dardaarmay inay ku dadaalaan sidii ay sharciga u doonan lahaayeen. waxay noo tahay farxad dhammaanteen idinkii xabsiga ku jiray muddo dheer iyo eheladiinii aad u dhibanaayay annagoo runtii community ahaan waqti badan ku bixinay in xorriyadiina dib u heshaan marka inaad bannaanka timaadeen idinkoo caafimaad qabo idinkoo runtii waxa waaye dhib badan kadib inaad heshaan xorriyadiinii qof ka maqan yahay xanuunka ule waa garan karnaa weli lagu soo qaydina telefoon taagan yahay marka runtii waa ku wada faraxsan nahay idinkale inaad ku sabirteen ku dulqaadateen runtii aad iyo aad u ognahay marka runtii annaga waxaan u taaganahayna waa shaqada ummadda waay intaa waxaa dheer waxaan filaa qof kasta waa haystaa warqaddii lasoo siiyey soo maaha yaan haysan qof walba idinka halla hubiya sababta warqadaas waa tii aad ugu soo baxdeen xabsiga la'aanteedna waxaad khatar u tihiin xabsiga ku waa kuwan qaar kamid ah Soomaalidii laga soo siidaayay xabsiga Landela ee magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika oo waramayay TV-ga caalamiga Universal TV kadib soo siideyntoodii. waxaan ku xirnay xabsiga Landela 3 bilood amal waxaan ay soo daayay komitida Soomaali waxaan ahayn 26 amal magacaygu waa Iraaq Cabdi Cilmi waxaan ku xirnaa Landela 3 bilood iyo something maanta saacada markay ahayd 8 barkii ayaa waxaan u yimaadeen community-ga Soomaaliyeed ayagaan hawsheena dhameeyeen oo suurageli inaan banaanka soo baxno. maxaa leedin ku xiray markii leedin xiray waxaan lagu xiray bilaa sharci baan in kuligeen iyo dad kale oo cusbaa ayagana oo borderka laga soo qabtay. kastaba ahaatee maahan markii ugu horeysay ee golaha jaaliyada Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika ay ku guuleystaan inay soo siidayaan maxaabiis Soomaaliyeed oo ku xirnaa xabsiyada waaweyn ee dalkani Koonfur Afrika balse tiradan ayaa waxa la dhihi karaa waa tiradii ugu badneed ee dad Soomaali abid ay ka soo siidayaan xabsiyada waaweyn ee ku yaala dalkani Koonfur Afrika. golaha jaaliyada Somali Community Board ee dalkani Koonfur Afrika ayaa Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika wuxuu ka caawiyaa arrimo badan oo ay kamid yihiin sharciyada waxbarashada taakulaynta dadka tabaalaysan iyo difaacidda xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika iyagoo ku shaqeeya nidaamkii safaaradeed ee Soomaalidu ugu baahneed dalkani Koonfur Afrika. Cabdinaasir Soomane, Universal TV, Johannesburg.